السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay Dr. Hodan oo dumarka haweenka baratay. waxaan doonayaa in dadaalo inaad vaccine-ka COVID-19 qaadatiin. wuxuu ku caawinayaa haddii cudurku kugu dhaco inaad isbitaalka galin, noloshaada dirqi aad galin, insha Allahna inaad ka kacdid si dib yara. dad badan baa u dhintay, dad badan bay ku dhacday, anaa ka mid ah oo laba jeer ku dhacay ehelkaygii, aabahay ku dhacay, la naxariisto. talaalkaasna waan ku farxsanahay marka dad badan oo shaqaala oo dadka caawiya, haday ehelka waayeel tahay, haday dhaqtariintii tahay, haday nurseski tahay, kulligeen oo dhan oo ka shaqeynaya grocery-ga oo ka shaqeynaya meelaha dadka la kulmaysid badan. way fiican tahay talaalka inaad qaadatid, naftaadu way badbaadin karaa. ilaahay amarkiisa ma diidayno qofku hadduu maalintiisa la qoray, laakiin ilaahay wuxuu yidhi inaan dadaalno weeyaan. talaalku dhibaatada ka badan ayuu kaa joojinaya dan dhibaato ku keenayo. waad dareemaysaa wax kastaba talaalku dadku isticmaali karaan, oo hadday tahay xumad, daal, oo meeshii lagu talaalay aad danqanaysid oo xanuun dareemaysid. laakiin haddaad dooran lahayd wax ku badbaadinaya oo naftaada dhibaato kaa qabanaya, sida seatbeltka u xidhatid gaadhiga, sidaas talaalka u eegtid inaad ku caawiyo ku badbaadiyo. Moderna ayaan qaatay, waan labadii talaal waan qaatay, wax badan maan dareemin madax xanuun iyo daal. hooyadiina way qaadatay. so man fadlag dadkeeniyo waxaan doonaynaa insha Allah cimri dheer iyo caafimaad baan nii rajaynaynaa talaalka qaata. shukran.